السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa ka hadlaynaa kitaabkan baa ka hadlaynaa buugan magaciisa waa qur'aan magaca badan uu leeyahay alfurqaan oo ka mid ah kitaabkan waa kalaamka Allah subxaanahu wa ta'ala waa kitaabka diinteena oo kaamil ah ku jiro diinta islaamka maadayaasho dhan ku jiro ama fiqi ahaado ama xadiis ahaado ama usul tafsiir ahaado asalkooda waa kitaabkan xaqana ka wada imaadeen kalaamullah ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu quraanka soo dejiyay آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين تودن كتاب كان بكامل كأهل كتاب كان بكامل كأهل سؤال أنا مرك أنت أقول ديو أديك يو كتاب كان حرير كيليدهين حرير كينا حرير أو أدقنيا ama kitaabkan wuxuu ku yahay qof oo adiyo qofkaas is aqoonin ma akhrisa maalintii maalin may ku dhaarta adoo quraankan akhrinin ogow noo maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay inna allaha yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwama wa yad'u bihi al-akharin ilaahi subhanahu wa ta'ala dadbu darajadooda kor u qaado doona kuwana dhulku ku tuuro doona quraanka daraadis waliga ma aragta qof oo ahlul qur'aan oo faqiir ah waliga ma aragta qof oo ahlul qur'aan ah oo bulshada ku dhex jiro ixtiraam loo lahayn sababta aad darajadaas waxa gaarsiiyay waa kalaamullah ogowna hadaa ka hijrootin qur'aankan waxa ka mid noqon doonta kuwa oo markuu rasuul markuu imaado maalinta qiyaamo wuxuu dhaha doonaa waqala ar-rasuul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura ilaahay oo qoomkayga qur'aankan waxay ka dhigteen wax laga hijroodo way ka hijroodeen qur'aanka ma akhriyaan wayna ka hijroodeen ya Allah wa kalaamullah qur'aanka laba wajiyo bari qiyaamo u imaan doonaa ama uu ku shafeeca qaado doona ama adigu xujo kugu noqonaya kugu soo jeesanaya maalinta kugu soo jeestana ilaahay agtiisa wajima kalid sababta waa kalaamullah waa ilaahay hadalkiisana haduu ka hor imaado waa bas meeshaas kugu dhamaata adiga meeshaas baa khatar ku jirta quraanka akhri maalintii wax yar ka akhri noo maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu naga sheekeynaa ajirka oo quraanka ku jiro wuxuu dhigay alif laam miim waa 30 alifka waa 10 ajir laamkana waa 10 miimkana waa 10 saddexda alif laam miim 30 ajir helaysa bal ka waran hadaa maalintii safra akhrisid hadaa maqra akhrisid hadaa xisb akhrisid hadaa juz akhrisid hadaa laba juz akhrisid 3 juz 4 juz 5 juz inta awoodid meeqa ajir helaysa waliga ma isweydiisay meeqa ajir baa heli doonta diinteena waa kaamil wax kastana wuu toosan yahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel kasta ajirka ka heli kartin ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu ku siiyo wuu ku cadeeyay adaale laga rabaa inta ku xirnaatid marabta adduunyadan inta ku liibaantid aakhirana inta ku liibaantid fa alayka bil qur'aan marabta xujo kasto ku haysato dib kasto ku haysto inta ka fogaatin fa alayka bil qur'aan marabta dib kasto ninaca familiga ninaca shaqada ninaca saaxiibahaaga intay ka dagaan fa alayka bil qur'aan salafu saalihiin tan kamid ah wuxuu dhahay lam ara ahadan yarfa'u qalila kal qur'aan fatuba liman ittakhadha al qur'ana qalila wuxuu dhahay waligay ma arkin saaxiibkiisa kale darajadiisa kor u qaaday sida quraanka camal
marka nabadgelyo iyo guul waxay u ahaatay qofkii ka dhigto qur-aanka saaxiib. qofkii ka dhigto qur-aanka saaxiib. waxaa xasuustaa markaa yaraa hooyadii waxay ugu dhaha jirtay markaa uga sheekeeyo saaxiibahayga iyo gabdhaha saaxiibaha isla nahanay markasta waxay ugu dhaha jirtay qur-aankaasaa saaxiib ku ah, qur-aankaas baa saaxiib ku ah. marka aniga waxay isdhahay hooyo saaxiibahaygaa kaaga sheekeynayaa qur-aanka iyo waxa maxaa ila soo gasha. laakiin haddeertaanaa ogaadi hooyo waxay ka wado. haddaa rabtid naxariis iyo xasiloonid inta qalbigaaga kuu gasho saaxiib la noqo qur-aankan. waa kalaamullah, ilaahayaa saaxiib la tahay. murugo kastoo ku haysto maanta gabar saaxiibta haddaa murugadaada u sheegtid intay ku dhegaysatay kaa tegaysaa. laakiin qur-aanka murugo markay ku qabato haddaa u carartin oo akhrisid qalbigu kuu dejinayaa. dhib hadduu maanta ku haysto haddaa qur-aanka akhrisid qalbigaa kuu degaay. gabar saaxiibtaa u tag dhibkaaga u sheego waxay kaaga caawin karto ma jirto. oo sorry intay kugu dhahda iska soconaysaa. xumaana maaha, laakiin bilaadan dabeecadooda waay, bilaadan dabeecadooda waay. marka saaxiib ka dhigo waa liibaanaysaa adduunyo iyo aakhirabo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.